Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Ku soo dhowaada channelkayga Ogaalka Dunida. Sanadii 2016, nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Mustaf Daahir ayaa ka soo baxay magaalada Tripoli ee dalka Liibiya, isaga oo raba inuu tahriib ku tago Yurub. Mustaf wuxuu ahaa 24 jir, ka soo jeeda Soomaaliya, kuna riyoonayay nolol wanaagsan iyo shaqo sharaf leh. Noloshii adag iyo shaqo la'aanta ka jirta dalkiisa ayaa ku khasabtay inuu naftiisa halligo halista uu ka warqabo. Doontii geerida iyo nolol labadaba. Mustaf wuxuu raacay doon yar oo ay saarnaayeen ku dhowaad 120 qof oo isugu jira rag, dumar iyo carruur. Doontu waxay ahayd mid daciif ah oo aanan u qalmin safar dheer, balse dadka saarnaa waxa keliya ee maskaxdooda ku jiray waxay ahayd Yurub, nolol cusub. Badda la yaabka leh. Markii ay doontii dhex martay badda Mediterranean, waxaa ku dhacay dabaylo xooggan iyo hirar waaweyn. Doontii waxa ay bilowday inay biyaha gasho. Dadkii saarnaa way cabsanayeen. Qaar kale ayaa bilaabay in ay qayliyaan, qaar kalena waxa ay bilaabeen in ay ducaystaan. Mustaf iyo ilmo yar. Markii ay doontu isku dheelitirmi weyday, dad badan ayaa bilaabay inay badda ku dhacaan. Mustaf wuxuu arkay ilmo yar oo 3 jir ah oo hooyadiis la go'day. Isaga oo aan waxba ka fikirin ayuu ku booday. Waxa uu gacmaha ku qaaday isaga oo isku dayay inuu la dabaasho dhinaca markabka saxminta. Wuu badbaadiyay, isaguna waa laga badbaadiyay. Markii markabka Talyaaniga ee samata bixinta uu yimid, Mustaf wuxuu ilmaha yar siiyay askariga badeed. Laakiin daalkii badnaa iyo qabowgii badda awgeed, Mustaf naftiisa uma adkeysan karin. Warkii ugu dambeeyay ku yiri askarigii, hubi in ilmaha uu badbaado. Markaas ayuu miyir daboolmay. Geeri, qof badbaadiyay nolol. Markii la geeyay markabka, dhakhaatiirtii waxa ay isku dayeen inay badbaadiyaan, balse wuu ku dhintay saacado kadib. Ilmihii wuu badbaaday. Mustaf oo la ogaaday in magaciisu yahay Bashiir, hooyadiisuna way geeriyootay. Bashiir wuxuu noqday mid la daryeela kuna kora Yurub. Warbaahinta caalamka. Dhacdadan ayaa si weyn u qabsatay warbaahinta. Sawirka Mustaf oo ilmaha yar qaadaya iyada oo badda ay ku xiran tahay ayaa noqday astaan caalami ah oo muujinaysa geesinimada tahriibayaasha. Dad badan ayaa sheekadan ka oysiisay. Magac aabe aan dhalin. Bashiir markii uu koray, waxaa loo sheegay sheekadii Mustaf markii uu 10 sano jiray. Wuxuu qoray warqad uu ku leeyahay, ma aanan arkin aabbahay dhabta ah, balse waxaan haystaa geesi naftiisa ii huray. Qabriga badweynta. Mustaf lama helin meydkiisa, waxaana la rumaysan yahay in la go'day, in la degtay badda, halkaas ay dadka qaar u yaqaanaan qabriga tahriibayaasha. Maanta Mustaf Bashiir ayaa ah mid dhalaalaya hadafkiisa, wuxuuna doonayaa inuu noqdo dhakhaatiirta badbaadiya dadka sida Mustaf, wuxuuna ku nool yahay Talyaaniga. Wuxuuna sheegay in magaca Mustaf uu yahay xasuusta noloshiisa oo dhan. Maanta qisada halkaas bay inoogu egtahay. Haddii aad nala soo gaartay muuqaalka dhammaadkiisa, anaga iloowin inaad subscribe inoo dhahdo, like inoo saarto, ugu dambeyn aad gambaleelka furto si sheekooyinka cusub ay ku soo gaaraan. Waa inoo iyo sheeko kale oo xiiso leh. Goodbye.